kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa shanta bisha 12 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo saddex qodob oo xasaasi ah ka wada hadlay dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo ka qarxay duleedka magaalada Gaalkacyo Kenya oo kismaayo ku soo rogtay xayiraad dhinaca duulimaadyada Cabdi Shakuur oo walwal ka muujiyay baaq dilkiisa lagu banaysanayo oo uu soo saaray Xasan Daahir Aweys iyo xisbiga wadajir oo digniin u diray Villa Soomaaliya iyo kiiska dilka Almaas Elman oo laga furayo golaha shacabka intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku horeynay gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ay weheliyaan qaar kamid ah xubnaha madasha ayaa maanta la kulmay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sida ay xubna ka tirsan madasha inoo sheegeen wada hadaladan ayaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya ee iminka waxaana diiradda lagu saaray saddex qodob oo muhiim oo kala ah helitaanka doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana la isla ogol yahay oo ka dhacday Villa Soomaaliya wada hadallo dhab ah oo dhexmarad saamilayda siyaasadda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada xisbiyada iyo dawladda joojinta faragelinta ciidamada Ethiopia ay ku hayaan arrimaha gudaha Soomaaliya iyaga oo taageeraya Villa Soomaaliya kulankan ayaa imaanaya iyadoo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo weheliyaan xubna ka tirsan madasha oo sidoo kale koodii bishan kulan la qaatay safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto beesha caalamka ayaa maalmihii ugu dambeeyay sare u qaaday kulamada iyo wada tashiyada ay la yeelanayaan xisbiyada iyo siyaasadda dalka xilli aad looga walaacsan yahay in madaxweyne Farmaajo isku dayayo inuu waqtiga kororsado madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku dhagan yahay qabashada doorasho qof iyo cod oo uu og yahay in dalka aysan iminka ka dhici karin balse ujeedkeedu uu yahay in waqti lagu lumiyo si dawladda u hesho muddo kordhin dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed uu ka soconayo duleedka magaalada Gaalkacyo dagaalka ayaa waxa uu ka socdaa deegaan lagu magacaabo Inadiiday oo 15 kiiloomitir dhinaca bari ka xiga degmada Barwaaqo ee bariga gobolka Mudug waxaana u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland dadka ku sugan gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaalka oo bilowday saaki aroortii ay ku geeriyoodeen ilaa 8 ruux halka in ka badan ay ku dhaawacmeen oo labada dhinac ka kala tirsan dadka ku dhaawacmay dagaalka ayaa la soo warinayaa in loo qaaday dhanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug labada maleeshiya ee dagaalantay ayaa waxa la sheegay in isku heesaan dhul ku yaala deegaanka lagu dagaalamay waxaana dagaalkan uu yahay mid soo laalaabtay ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay maamulada Puntland iyo Galmudug oo ku aadan dagaalkan geeska kalena war ka soo baxay hay'adda duulimaadyada rayidka Kenya ayaa waxa amaro cusub oo dhinaca duulimaadka lagu soo rogay diyaaradaha ka duula garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee ku wajahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya amarkan ayaa lagu shaaciyay in diyaaradaha ka baxa Kismaayo ee ku wajahan Nairobi ay sii maraan magaalada Wajeer si loogu sameeyo baaritaan la xiriira dhinaca amniga 14 bishii la soo dhaafay ee November ee sanadkan 2019 ayaa kulanay magaalada Nairobi ay ku yeesheen madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya waxay ku kala saxiixdeen heshiis ku saabsan in diyaaradda ka baxda Muqdisho ay si toos ah ugu degto magaalada Nairobi heshiiskaas ayaa dhigaya in dhammaan diyaaradaha ka baxa Soomaaliya marka laga reebo Muqdisho ay maraan Wajeer si halkaas baaritaan loogu sameeyo intii uu jiray khilaafka dawladda federaalka iyo Kenya diyaaradaha ka baxa magaalada Kismaayo waxa si toos ay ugu degi jireen magaalada Nairobi waxaana dawladda Kenya ay sheegtay in hadda laga doonayo inay maraan Wajeer si loo baaro Kismaayo oo ah caasimada ku meel gaarka ee Jubbaland waxa haatan saaran xayiraad dhanka duulimaadyada ay ku soo rogtay dawladda Soomaaliya oo xiriir fiican uusan kala dhaxayn maamulkaasi go'aamada oo diyaaradaha tagaya ama ka soo baxaya Kismaayo ay soo maraan Muqdisho ayaa waxa shaqooyinka ku waayay boqolaal halka sare ay u qaaday qarashka duulimaadyada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa hadii la soo dhaafay tagay Nairobi isagoo la kulmay siyaasiyiin iyo madax kale Kenya oo ciidamo ka tirsan Amisom ay ka joogaan Jubbaland ayaa xiriir dawla leh Axmed Madoobe waxaana ay ka taageertaa in al-shabaab laga saaray qaybo kamid ah magaalada Kismaayo
sanadka markuu ahaa 2012. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dhibaato waxay kala kulmaan si marista magaalada Wajeer oo si weyn loogu baaro, waxaana dhowr jeer dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay kala saxiixdeen heshiis dhigaya in diyaaradaha ay si toos ah u tagi karaan Nairobi, balse Kenya ay ka baxday Kenya. dhinaca kalena xisbiga wadajir uu hogaamiyo siyaasiga Cabdiraxmaan Shakuur warsame ayaa qoraal uu soo saaray uu ku cambaareeyay hadalkii ka soo yeeray Sheikh Xasan Daahir Aweys oo uu eedeyn ugu jeediyay Cabdiraxmaan Shakuur warsame. war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga wadajir ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay fursad u siisay rag ka tirsan Al-Shabaab inay baneystaan dilka siyaasiga Cabdiraxmaan Shakuur. Xasan Daahir Aweys waa maxbuus u xiran argagixisanimo, waxaana ilaaliya oo ammaankiisa suga ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya, mana heli karo fursad uu fariin oo ku soo diro haddii aysan dowladdu gacan ka siin. waxaan kaloo la ogyahay in xiriirka xagjirka ee ka dhexeeya Xasan Daahir Aweys iyo Fahad Yaasiin taliyaha Niisa ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay. sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay xisbiga wadajir waxaa lagu cadeeyay in dhib kasta oo soo gaara hoggaanka iyo xubnaha xisbiga ay mas'uuliyadeeda qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhinaca kalena siyaasiga Cabdiraxmaan Shakuur warsame ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ogolaatay in isaga la dilo kadib markii ay Xasan Daahir Aweys u ogolaatay inuu ku baaqo dilkiisa. Cabdiraxmaan oo Twitter-ka soo dhigay qoraal uga hadlayay arrintan ayaa sheegay in Xasan Daahir Aweys ay dowladda u ogolaatay inuu ku baaqo dilkiisa, iyada oo taageerayaasha dowladana si la mid ah baaqaasi baraha bulshada ka wadaan sida uu hadalka u dhigay. dowladda Soomaaliya waxay Xasan Daahir Aweys oo ah argagixiye dilay kumanaan qof u ogolaatay inuu ku baaqo dilkayga, iyada ayaana ku taageeraysa taageerayaasheeda. iyada sidoo kale hadalkaasi ku haya baraha bulshada sooma cadda inay wada shaqeyn argagixisada iyo dowladda, ayuu yiri Cabdiraxmaan Shakuur warsame. Xasan Daahir Aweys oo Facebook ka soo muuqday ayaa sheegay in Cabdiraxmaan uu ka baxay diinta, isla markaana ay tahay in seefta qabato ama uu toobad keeno. Xasan waxa uu dowladda federaalka u yahay xabsi guri tan iyo sanadkii 2013 markaas oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan iyo culimada qaar ayaa isku maandhaafay hadal uu ku difaacayay xuquuqda haweenka, iyadoo culimada qaarna aad uga caroodeen hadalkaasi oo ku sheegay in Cabdiraxmaan uu beeniyay xadiis saxiix ah. golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa u yeeray wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale si wax looga weydiiyo arrimo la xiriira amniga dalka oo ay ku jirta dilkii Almaas Elman oo 20kii bishii hore lagu dilay gudaha xerada Xalane ee garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Almaas ayaa iyada oo saaran baabuur dhex socda xerada Xalane waxaa ku dhacday xabad aan la aqoon halka ay ka timid oo weli baaritaankeeda u socdo. xildhibaano ka tirsan golaha oo mooshinka ka keenay wasiir Ducaale oo si wax looga weydiiyay dilka Almaas oo sidoo kale haysata dhalashada Canada ayaa diyaariyay weydiimo arrimahaasi la xiriira. lama oga in qoyska Elman ay fadhiga imaan doonaan iyo in kale, hase yeeshee waxay hore u dalbadeen in Soomaaliya iyo Canada ay baaritaan rasmi ah oo cad ku sameeyaan dilka Almaas. waxaynu jeclaan lahayn in dilka Almaas si buuxda loo baaro. waxaanu codsanaynaa in dowladaha Soomaaliya iyo Canada ay si wada jir oo qoto dheer arrintan u baaraan maadaama ay lahayd labada dhalasho ee labada dal, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qoyska Almaas. wasiirka amniga qaranka Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa lagu wargeliyay inuu axadda hor yimaado golaha shacabka. 24 bishii hore wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay la socdaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo taliyaha hay'adda socdaalka Maxamed Aadan Koofi ayaa lagu diiday warbixin ay siin rabeen guddiga joogtada ee golaha shacabka, iyada oo loo balamiyay kulanka weyn. Almaas ayaa horey u ahayd xogayihii koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Kenya, waxaana ay hadda ka tirsaneyd hay'adda Elman. Almaas ayaa la dhalatay Elwad Elman oo ka tirsan qaramada midoobay iyo Imaan Elman oo ah sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. ugu dambeyntiina warar lagu kalsoonaan karo aan helayna ayaa sheegaya in khilaaf horle uu soo kala dhexgalay Imaaraadka Carabta iyo maamulka Puntland, kaas oo salka ku haya arrimo la xiriira shirkadaha gacan saarka la leh Imaaraadka ee ka howlgala Puntland. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa muddo 13 maalin ay ku maqan magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta,
halkaas uu joogo sidii heshiisyo cusub ula soo saxiixan lahaayeen dalkaasi. Madaxweyne Dani oo inta badan u safra wadanka isku taga Imaaraadka Carabta oo ku leeyahay ganacsiyo waaweyn iyo sheerar kala duwan ayaa warbaahinta ka soo muuqan in ka badan 13 maalin arrintaas oo keentay walaac ku aadan madaxnaanshaha madaxweyne Dani. Madaxweyne Dani iyo waxgaradka Boosaaso ayaa isku fahmi waayay shirkadda saadka ciidamada ee dhaqaalaha ay siisay Imaaraadka Carabta taas oo saamile ay ku leeyihiin ganacsato waaweyn oo ka soo jeeda magaalada Boosaaso. Arrintan ayaa sababtay inay qalqal gasho amniga magaalada Boosaaso oo ciidamo beeleed ay la wareegeen guud ahaan magaalada taas oo markii dambe la xaliyay. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka waa naga inta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararka inuu halkani soo gelino. waana mahadsantiin.